halkani waa Ifie Media. waagaag waxaa qadka si toos ugu jira Shiina Akhyaar oo aasaasihi kooxda waayaha cusub oo ku sugan magaalada New York ee wadankaasi Mareykanka. Shiina bal dad badan baa sugayay bal wixii ka soo baxay safaradii maalmahan aad ku joogtay wadanka Mareykanka. Horta bal noo soo koob socdaalkaagu muxuu ku saabsanaa? socdaalkii wuxuu ku saabsanaa casimadan ka helay dowladda Mareykanka kaasoo aan kaga mid ahaa xubno laga casumay qaaradda Africa oo 20 qof ahaa kuna yimid laguna casumay program yiraahdo IVLP oo International Visitor Program Leadership kaasoo dad badan oo hortayada dad badan adduunka caalamka madax ka ah ay ku yimaadeen sida Tony Blair ama Sarkozy ama Hamid Karzai ama dhammaan dad fara badan caalamka aad looga yaqaan madax ka ah wadamada anfacay lagu siiyay asharo iyo maaragtay iyo sidii ay u noqon lahaayeen leadership ama u baran lahaayeen. Marka dadkaas siyaabo kala duwan ku yimaadaan oo ama kala jira ku yimaadaan ama activity dhalinyarada ku yimaadaan ama shaqooyin ku yimaadaan, laakiin waa program noocaas oo dowladda Mareykanku sanad walba caalamka ay ugu deeqdo si loo siiyo dadkooda wax qabta ama activity-yaasha leadership-nimo programka. Sidoo kale waxaad wadeen barnaamij Sunrise Somali Sunrise la yiraahdo. Marka barnaamijkaasi muxuu yahay isna? Programkii shirkii aanu imid wuxuu dhamaaday 18kii 8 baan ku jirnay. waxaan tagay gobollo badan oo dadka Mareykanka kamid ah si aan duruus casharo uga qaato iyo casharada aan filayo in dadkayga aan socdaan kuna laaban doono. inta markay dhamaadaan sidoo kale waxaa halkan ka socday abaabul ahaa program la Somali Sunrise ama qorax soo bixi Soomaaliya kaasoo fikirkiisa aan lahayn ujeedkiisa ahayd sidii magaalada Muqdisho iyo gobollada Soomaaliya loogu qaban lahaa bandhig faneedyo ballaaran si dadka loogu muujiyo in nabadii ay soo hilaacday, in qoraxdii noo soo baxday, in nabadii laisku dhisigeliyo oo laiskaashado ummadana la ilowsiiyo dadkii cabdirinta ku hayay ama xajirintii diidanaa xorriyadda dadka. Soomaalidu waa dad dhaqan u leh hidaha iyo dhaqan u leh hidahanagu waa inaanu muujino oon ballaarino ugana faa'iidaysano dhanka wanaagga iyo nabadda. programkii waxaanu qorsheynaynay inaanu Mareykanka aanu ku iftitaaxno si promotion aan ugu sameyno oo aanu ugu hano fundraising. programka ugu horeeya ka dhacay magaalada Washington, hoolka ugu weyn ee la yiraahdo Kennedy Center oo hoolasha caalamka ugu waaweyn. Kennedy Center dad badan baa kasoo qayb galay, koleydana caalamka waxaa looga daawanay live TV-yada iyo internet. xalayna sidoo kale waxaanu soo gabagabeynay programkii labaad ee ka dhacay magaalada New York kaasoo nagala qayb galayeen walaalkina Khalalaasiya keenan oo runtii qof u damqaaya ummadiisa iyo dadkiisaba kuna weyn tahay in Soomaaliya xasilooni wato dhalinyaradana ay ka baxaan dhibka iyo rafaadka iyo adeegsiga qaladka lagu adeegsanayo. sidoo kale waxaa joogay anagoo waayaha cusub oo programkana barnaamijgareynay iyo weliba fanaaniin kale oo Mareykan ah oo weliba caanka Mareykanka gaar ahaan New York. sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay mushkilaha weyn Soomaaliyeed Barkhad oo nooga yimid Minnesota iyo sidoo kale Cabbaas Siraad oo kamid ahaaba ahna fanaan Soomaaliyeed kana mid ahaa qabanqaabiyaashii Somali Sunrise dadka Mareykanka ka joogay. marka halka waxaad kusoo bandhigteen heeso gubaaba ah. waxaan kusoo bandhignay qayb kamid ah heesii baraarujinta aan ugu talagalay ummadda annaga keliya maahan evan keenan wuxuu soo bandhigayay xalay sidii ummadda u danaysiin lahaa qarnimadooda iyo sharaftooda asagoo ka qaaday heestii qolada calankeeda oo music habaysan waadi talaag iyo heesii lagu yaqaanay dhiiga waa batay nagala soo baxa. runtii waa cusubna waxaa meesha kusoo bandhigeen wacdarii lagu yaqaanay sugta nabadda ugu talagaleen. ujeedkana wuxuu ahaa sidii aanu halkan dadka ku dhaqan ee Amerikaanka ah aanu u dareensiin lahayn hadafkanaga uga dhacdhacin lahayn in aanu nahay dad nabdeed nabadana ka shaqeeya. Soomaalida aysan ahayn dad al-shabaab ama dad burcabadeeda ama dadka tahriibiya, laakiin aanu u muujino in dad badan oo wanaaga jecel oo nabadda jecel oo runtii ka shaqeeya oo jecel in dadku badbaado inay jiraan. runtii xalay dad badan baana fikirkaas uga bedelnay oo aaminsanayn in dad anagoo kale ah oo bandhig faneedyo sameynaya oo nabadda ka shaqeynaya in la heli karo. sidoo kale waxaa aan iloobi doonin ummadda Soomaaliyeed wax weyn u ahaa runtii isoona bandhigay qiimaha iyo qadarinta ay leedahay muwaadiniinimada gabdha Soomaaliyeed ee la yiraahdo mataanaha oo runtii ah gabdha caanka dalka Mareykanka sameeya dharka fashionka iyo wax lamidka ah
oo runtii xalay iyagoo barnaamijka xalay dhacaya qeyb weyn ka geystay suurana geliya in barnaamijkaas u qabsoomo si ummadda soomaaliyeed loo niyadda loogu dhiso. runtii sidoo kale waxaan magaceliyaa safaaradda maraykanka ee ku leedahay magaalada Nairobi arrimaha Soomaaliya oo runtii iyaguna qeyb weyn ku kale Somali Sunrise sidii u fuli lahaa ay kuna dadaalaya in ummadda Soomaaliyeed ay helaan wacyigelin oo ka ballaaran intii hore aan u wanay oo ah waa kana u magacdaran Somali Sunrise. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhegeysanaysa iyo inta qof arkaysa iyo inta kale sii maqli doontaba. runtii nabadda waxay ku jiraa gacanta qofyaana sugin aan raasana anagu aan u dadaalno anagu aan u dhimano qof kaloo aan isku halaynin misi jirin waa soo arkaysaa waa bilaabatay aan qoraxda si fiican noogu soo wada baxdo. sidoo kaleeto sidii halkaan waxaan ka duulayaa beri haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u duulayaa Nairobi iyo xarunteedii. Nairobi waa meel noo ah bayska waayaha cusub ayna joogaan dadka ugu muhiimsanaa waayaha cusub qeybo kamid ah oo runtii xaaskeyda Fallis iyo Digriyow Xule Burhaan Axmed iyo kuwo kaleetaba oo kamid ah dhalinta waayaha cusub. runtii waa meel dadka Soomaaliyeed nagula dhaqan ay yihiin dad jecel dad farxad iyo murugo aan isla qaybsano runtii marna aan ilaawi doonin. runtii waxaan u duulayaa beri haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku wajahanahay laba maalin kadib saa rajeynaya si aan uga sheergareeyo ummadii aan ka imid iyo ummadda Soomaaliya joogta iyo asxaabtooda ayaa sida qaaliga ay sugaysaba waxqabadkii iyo shirarkii halkaan u imid natiijada kasoo baxday. shiine ugu dambeyntii fanaaniin baa halkan kugu soo dhaweeyey oo barnaamij kula qabanayay iyagu ma waayaha cusub bay ka tirsan yihiin sida fanaaniinta hodan iyo dalmar waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan ma waayaha cusub bay ka tirsan yihiin mise waa fanaaniinta ku nool waddanka Maraykanka gaar ahaan Minneapolis? runtii waa su'aal fiican waayo in badan aysan kala aqoonin. dalmar iyo hodan waa laba qof oo kamid ah dhalinta waayaha cusub welibana ah dadkii ugu horeeyey waayaha cusub wax ka aasaasay. runtii waayaha cusub qaarna halkaan yimaadeen qaarna waxay joogaan Nairobi oo weli wax u shaqeynayaan bulshadoodii una dadaalayaan inay jecel yihiin mar walba in dadkooda iyo dadkooda ay socdeen in ay farxadii murugo la qaybsadaan. runtii waa waayaha cusub mar walba waana arkaysaan barnaamijyada wax ka qabanayaan ama heesii hore dib loo baaro xataa aad ka heleysaan oo ugu horreeya waayaha cusub ee lagu yaqaanay. way jiraan fanaaniin Soomaaliyeed oo runtii aada u qiimo badan oo igu soo dhaweeyay magaalada Minnesota gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis. runtii waxaan leeyahay waxa ahaydeen dad qiimo leh dad Soomaaliyeed fanaaniin ku dayasho mudan oo runtii isku xiran qofkooda qiimaha la soo dhaweysanaya jecel in meesha la marayo laga sii dhaqaaqo oo hore loo socdo oo runtii aan lagu hamiganaga aan ku arkaynin waayaha cusub Kennedy Center iyo New York ka perform karaysa dee fanaan Soomaaliyeed indhaha ma jira iska saacada laakiin jecel dhahaya warmaya waxaa ii dhiman inaan ka perform karaysa cirka dadaala. marka runtii waan dadaalaynaa ummaddanadana Maraykanka kuwa jooga waayaha cusub iyo kuwa Nairobi jooga ee qiimaha leh waajibana waa saaran ah inaan ummadda u wada shaqeyno. waa mahadsantahay Shiine. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha kooxda waayaha cusub Shiine Akhyaar oo isagoo ku sugan magaalada New York ee dalka Maraykanka qadka telefoonka inoogu warameeyay.